بسم الله magacay waa Abshir Cabdi Joolaal waxaan ka tirsanahay dhalinyarada shaqo abuurka ee degmada wajiga labaad ee jaamiciyiinta marka waaxda xawtaako dad badan asxaab kan nahay marka wareystid degmada cilaaqaad badan kama dhaxeeyo gudoomiyaha xataa magaciisa qaarkood ma yaqaanaan xaafadaha qaar sida Nasruddin iyo Xamajiidad kor iska dhaaf qof kalaba inay gudoomiyaha dhalinyarada iyo dadka ay bartaan marka ma ku tala jirtaa in waaxdaas oo kale iyo xaafadahaas oo kale iyo waqti u sameeysid saa sheegay markii hore degmada xiriir lama lahayn oo degmada kuma xirneenin barnaamij shaqo kama jirin laakiin hadda si loo bilaabo mashruuca shaqo abuurka dhalinyarada waxaa bilaabatay in dhalinyarada degmada ku soo xirmaan bartaan caqabada waa wajah jir waxay dhalinyarada inta aqoonin waaxda laanta tabeelaha degmada ma aysan aqoonin laakiin markii lagu imtixaamay la dhahay shaqada inaad ku heshaan waxay ku xiran tahay inaad taqaanid gudoomiye waaxidkaaga gudoomiye laameedkaaga laanta degan tahay tabeelaha degan tahay falarkaaga ka tirsan tahay dariska aad tahay marka waxaa bilaabatay dhalinyarada inay degmada ku soo xirmaan la shaqeeyaan cabsiya jirto waagi hore laakiin sida aaminsan hadda 90% 80% dadka dhalinyarada degmada way la shaqeeyaan hadda way ku xiran yihiin